السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان الشعب كصومال ملكسي جوجان مالين وعنا وناكسن وولاشين هنا وإيدين له وقت وعن وكجبرتين إن عبد الشدة إن عجور كسوقل ودنيني ماذا كسوقل إن طلش عائلك إني صومالي مذودو إني نهير جارنا إني معدنتين نقضن إن يعني إنه كإل بحنا قبيلة الداشتي ندت كينا ليبي كوسي سعود ولا قصو قرا إن قار كوسي سعود إني كوانتون مركز شعب كسمان waxaan leeyahay in big image aynu aragno aynu heer gaarno marka waa walaashina idin leh waqti waxaan soo dhawaada umadayda dhamaan waan wada jeclahay inaynu يعني ka sheekayno one day halgankii dhibkina soo maray dhibaatadii dadkeenii markaas ku dhimanayay marka alxamdulillah waynu gaari doonaa qalbiga saliim ha laga dhigto hal is jeclaado aynu hiigsano wax wanaagsan aynu horumarno يعني horumar aaya leh aynu noqono dad hal meel isugu yimaado adduunka caalamka barbar uu ku dhacay laakiin way ka ilbaxeen way wada hadleen dantooday fiirsadeen dad aaya leh ay noqdeen oo dantooda yaqaan marka shacabkayga waxaan leeyahay idin jecelahay inuu maaragtay maskaxdiina wax kale inagala gelin inaga le kamerayaan iska daba wadanin hebel kan ku samee heblaay kan ku samee kamera iska daba taagnaad wax iska duuba mid waxba u xumayni kan kale kii xumeeyay ma u tanasunayo يعني قفك ولا الدنيا وحما أنت سمي ما أنت قيامي أصير أطالع ما أنت قيام هدو حتى يرادني وحما ما سمي إلهي عاون عبورتي أساكو ضالع عناي مركو حان لي هاي دانتا مدين إيهينا هلا إيغو أينو اسكو سميرنو أينو هرمرنو تاسا دال كان كاقبحو تيب برشدين الصومالي داشتي واتا وقبيالد iyo iska daba taagnaasha iska daba wareeg waynu ka bixi doonaa waynu guulaysan doonaa taa dalka kaga baxo waxaan horta maanta barnaamijkan idin kugu soo gal waxay tahay oo aad kaga xumaaday dadka dalka degan Soomaaliyeed ee cudurrada HIV ku dhaco aan aad uga xumaaday sida loola dhaqmo in badan baa rabay inaan soo galo ilaahay qadarkii ima suura gelin maanta ilaahay ii suura geliyay wuxuu ilaahay qadar baan kali waxaan daawaday wiil يعني sarkaal ah oo Puntland joogay iyo gabar jigjiga ka timid oo يعني tiri wali shiidaya in gurigii dhagaxa lagu tuuraa way shiidayaan mis dhagaxa gurigii marka la ijaar oo kale laga makraysanaayo dadkii way takoorayaan gabar kale oo aad u qurux badnayd oo iyadana saas oo kale oo ciyaalkiisii u shiidayeen ilkihii ay ka tuureen oo loo tuuriyaynayo la leeyahay cudurkaas ay qabtaa wad maqlayseen wiilkii sarkaalkii Puntland joogay oo يعني runta uu ka sheegay oo yiri in anigii baaba wixii late markaan cudurkii sheegay macdaa qaba sicdan cudur oo يعني in qofka uu kale uu ku cunayo kale marka sidaas looma baahno waxa loo baahan yahay dadka in la soo dhaweeyo hadii kale dadka cadawnimaa lagu beeraya qofkii marka wow dhahday oo jiranta in ismaqta ha isoo gaar fartadii isoo gaarin nacayb qofka ilaahay ka maqeen mooyee walaa dadka kale uqdad baa galayso markaan guriga laga jaarin markii lagu takooro markii ilmahaadii la takooro markii adiga lagu takooro markii gabar inaan oo kale oo cudurka ku dhaco wax guursada gabadha la waayo يعني bulshada inta leeg dad diilayno naay caalamka adduunka treatment baa la siiyaa dawadooda ay doontaan nolosheeda haystaan guriyahooda joogaan hadda maanta ma sha Allah sida in lagu dhaqaaqay hawshaas hadda u socoto aad baan ugu farxay in dadka isku daysadeen hadda shalay in group of iyadana oo dadka cudurkaas qabo way soo banaan baxayeen in aan la qarinin in takoorka nagala daayo hadda in aba Soomaaliyeed aan fiirsanay daraad wuxuu yiri waxa iigu darnaa dadka sokeeyga يعني aniga xigay ninkii ugu ag tukanay markaan yiri cudurkaas aan qabo wuxuu iga cararay maqaayadna fadhiisto wuxuu yiri waa la iga istaagaya wuxuu yiri wiilkan aniga aan dhalay my own son wiilkaygii aan ku aabo cudurkaas la iga helay aaba macaan wuxuu yiri iga cararay marka inteen joognaa dhashiba haday ka cararto oo dariski ka cararo oo guriga ehelkaaga ka cararaan day qofka misdilaya marka stress waxa badilaya iyo muruga iyo dhibaato cudurkan aduu kugu dhici karaa aniga ku dhici karaa qof kasta ku dhici karaa dadka la soo dhaweeyo in ay dawooyinka qaataan يعني ان garab ha lagu siiyo guriyaha ka ijaara familada ay ka dhasheen dadka la soo dhaweeyo ha is guursadaan يعني qofka cudurka qabo intaas oo qabo dawooyin qaataan cudurka ma gudbinayaan waxaan leeyahay gabadha in يعني
nasiibka ku yeelatay oo ilaahay u qadar iyadoo ninkeeda isqaba inuu ku dhacane ninkaaga sida gabadha maasha Allah khayr la siiyo yulkii ciidanka ah sarkaalka wuxuu yiri xaaskayga si sharaf ila dhaqantay ilaahayna wuu ka waayay bulshada inteena kale waxa